waxaan leenahay bulshada magaalada Muqdisho inay gacmaha isqabsadaan horumarka ay ka shaqeeyaan meesha magaalada Muqdisho ay u soconayso iyo horumarkana laga wada shaqeeyo maarayuhuna qayb ayuu ka yahay dhismaha gobolka Banaadir iyo dhismaha magaalada Muqdisho intaba waxaan leenahay inaan gacmaha isqabsano magaalada naga burburtana aan soo cishano meeshaana muddo ay ugu dambeysay in la soo celiyo dhismaheedii iyo bilicdeeda la soo celiyo maanta inaan joogno farxad ayay noo tahay oo magaalada centerkeedii ah oo quruxdii magaaladana soo celinaysa marka waxaan leenahay waa guul u soo hoyatay gobolka Banaadir u soo hoyatay magaalada Muqdisho waxay noqon doontaa meel aad iyo aad u qurux badan oo bilicsan waxayna noqon doontaa laba arrin isku jirta meel la isugu soo baxo meel lagu nasto iyo meel taariikhi ah taariikhdii taaban mayno waan xiri doonaa muxuu ahaa shabaq ama wareeg baa loo sameyn doonaa si dadka iyo dhalinyaradu u fiirsato iyo caalamkuba taariikh ka mid ah taariikhdeenii hore iyo tii mugdiga ahaydba iyo dagaaladii sokeeye dhibkii iyo raadkii nooga tageenba ayay muujinaysaa laakiin dhinacyadeeda kale oo dhan waxaanu ka dhigaynaa sidii aad maaragtay muxuu ahaa noo tilmaantay inay noqoto goob aad iyo aad u qurux badan oo bulshada caasimaddu isugu soo baxdo talagalkeenu wuxuu yahay dhagaxdhiga kadib inaan ka dhigno goob weyn oo fagaaro ah oo beer ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ku ciyaaraan u soo fantasiyo yimaadaan xilliyada ciidaha iyo munaasabadaha gaarka ah halkan insha Allah ta'ala waxay noqon doontaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho fulinta hawshan waxa iska kaashanaya sida uu jananku u sheegay maamulka gobolka Banaadir oo fanka bixinaya wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo dhismaha qaadatay ujeedadu waxay tahay in bilicda magaalada iyo dib u dhiskaba kor loo qaado niyadda dadkeena oo sida dalku u burburay iyaduna u burburtay inay dib u soo noolaato ujeedadu waa sidaas